بيت waxay maqshay cod ay u malaynayso inuu yahay saaxiibteed Heli kaas oo ka imaanaya qaybta hoose ee guriga waxay u malaynaysaa in Heli ay u baahan tahay caawimaad sidaa darteed si taxaddar leh ay hoos ugu digaysaa isla markii ay gudaha gasho albaabka gadaasheeda ayaa si lama filaan u xirmay waxay isku dayaysaa inay furto laakiin albaabku ma furmayo markaas ayay mar kale maqlaysaa codkii بيت waxay raacaysaa codka meesha uu ka imaanayo laakiin inta ay sii socotay codkii Heli wuxuu si tartiib ah isku bedelaya cod cabsi ah markaas ayay dareemaysaa waxa uu yeeray inaysan ahayn saaxiibteed ay ahayd wax kale laambada ayaa si lama filaan u damaysa marna u ifaysa markaas ayay kor eegaysaa leerka ayaa ku qarxaya wajigeeda oo dhaawacan dartii wuxuu sababay indhaha inay wax ka arki weydo waxayna bilaabaysaa inay jaha u carabdo ilaa ay timaado meel masrax ah markii ay madaxa kor u qaado sixroolihi ayaa horteeda ka soo muuqanaya sixrooluhu wuxuu u muuqdaa majaajilayste hareerihiisa waxaa fadhiya dad ruuxaana dhammaantoodna waxay si aamusan u daawanayaan showga beyt waxay isku dayaysaa inay cararto laakiin si lama filaan ayuu silsilad cagaha uga xirayaa beyt isma dhiibayso iyadoo lugaha ka xiran ayay sii soconaysaa waxayna ogaanaysaa inaysan jirin cid u imaanaysa si ay u badbaadiso markaas ayay arkaysaa sanduuq weyn iyadoo cabsi la gariiraysa ayay u malaynaysaa in sanduuqan uu noqon karo meesha keliya ay ku badbaadi karto kadib waxay gelaysaa gudaha sanduuqa waxayna xiranaysaa daboolka daqiiqado yar oo aamusnaana beyt waxay nafteeda u sheegaysaa in sixrooluhu uusan heli karin laakiin markaas sanduuqa ayaa bilaabaya inuu dhaqdhaqaaqo beyt waxay isku dayaysaa inay ka baxdo laakiin daboolku ma furmayo markaas ayay fahmaysaa sanduuqan inuu yahay damin loo dhigay sixroolihii ayaa sanduuqa ku jiidanaya wuxuuna geenayaa meeshay dadka ruuxaantaha ay joogeen beyt waxay bilaabaysaa inay qayliso waxayna xoog u garaacaysaa daboolka markaas sixrooluhu wuxuu soo qaadanayaa miishaar weyn beyt waxay isku dayaysaa inay sanduuqa ka baxdo laakiin ma jirto meel ay uga baxdo sixrooluhu wuxuu bilaabaya inuu miishaarta ku kala jiro sanduuqa iyadoo ku jirta dhanka kale Heli iyo Garanti waxay si toos u maqlayaan qayladeeda laakiin ma jirto waxay u qaban karaan su'aasha kaliya ay isweydiinayaan waa kuma qofka xiga ee dhiman doona si aan u fahno sida waxaan oo dhan ay ku bilaabmeen waa inaanu dib ugu laabana habeenkii toddobada saaxiib ay gurigaas imaanayeen sheekada waxay ku bilaabanaysaa 7 saaxiib oo isku kulliyad ah kuwaasoo habeenkii iskugu yimid guri aad u weyn waxay ku cabayaan kuwana wada sheekaysanayaan agaarka dab weyn oo ka shidan guriga daaradiisa kooxda waxaa ka mid ah Lucas, Heli, Paige, Madalena, Beckson, Alisa iyo Garant waxay u muuqataa inay habeenka loo dabaaldegay dhalashada Alisa sidaa darteed ay dhammaantood go'aansadeen inay kireystaan gurigan weyn si ay halkan ugu qaataan habeen qurux badan intay ciyaarayeen kooxda ayaa bilaabay inay ku maadaystaan Heli iyo Garanti iyagoo ku kaftamay in labadoodu ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee isguursada maadaama muddo dheer ay ishukaansanayeen kaftanka ayaa labadoodaba ka dhigay kuwa aan raaxad dareemeyn waxayna bilaabayeen inay xoog u aamusaan sidaa darteed Garanti wuxuu ka kacayaa meesha wuxuuna gelayaa guriga halka Heli ay saaxiibada u sheegaysay in ay iyada iyo Garanti ay dhawaan kala tageen saaxiibadu aad bay uga xumaanayeen arrintaa waxayna kula talinayeen inay dib u heshiiyaan maadaama labadoodu ay si weyn iskugu soo baxayaan laakiin Heli waxay u sheegaysaa iyada iyo Garanti in xiriirkooda uu laba waddo kala duwan qaaday wax yar kadib kooxda inteeda kale waxay galayaan gudaha guriga iyagoo raadinaya wax ay cabaan laakiin si degdeg ah ayay u ogaanayeen in cabitaankii oo dhan uu ka dhamaaday maadaama gurigu ku yaala meel fog habeenkiina uu sii dhamaanayo waxay fahmeen inay si cid u keenaysa cabitaan kale laakiin marka ayay xasuustay in laga yaabo in gurigan hore loogu keydiyo cabitaano dheeraad ah sidaa darteed waxay go'aansadeen in guriga oo dhan ay ka raadiyaan raadintooda ayaa ugu dambayn keentay meel aan caadi ahayn waxay heleen albaab qufulan waxaana ku qoran calaamad odhanaysa ha gelin laakiin way iska indhatirayaan digniinta waxayna bilaabayeen inay xoog ku jabiyaan albaabka markii ay galaan gudaha jaranjartu waxay geenaysaa qaybta hoose ee guriga kaas oo aad u madow halkaas waxay ku arkayaan waxyaabo qadiimi ah oo cajiib ah markaas ayay u maraynayaan qofka guriga lahaa inuu ahaa qof aad u xuseeya sixirka iyo waxyaabaha qarsoon daqiiqada kadib Bigson wuxuu helayaa sanduuq qadiimi ah markii uu furana wuxuu ka dhex helayaa kaararka saadaasha Heli weligeed maysan arkin kaarar sidaan kale oo cabsi badan waxaana ka siiyaa badan in mid kasta lagu sawiray gacanta maadaama Heli ay wax ka taqaano akhrinta kaararka saaxiibada waxay ku qarcinayaan inay u samayso saadaal Heli way ka labalabeynaysaa waxayna u sheegaysaa inaysan wanaagsaneyn in la isticmaalo kaarar aysan horey u aqoon laakiin Alisa way ku adkaysanaysaa waxayna ku oranaysaa waa dhalashadayda tanna waa rabitaankayga ugu dambeyn Heli way aqbalaysaa waxayna bilaabayaan inay shidaan shumacyo ku wareegsan meesha waxayna isku diyaarinayaan akhrinta kaararka laakiin markii ay sidaas u furto sanduuqa dabeyl xoog leh ayaa guriga gudihiisa ka kacaysa taasoo keenaysa inay shumacyadu damdamaan Heli aad ayay u baqanaysaa waxayna mar kale isku dayaysaa inay saaxiibadeed ka dhaadhiciso inay joojiyaan laakiin Alisa kama tanaasuleysa waxayna ku adkaysanaysaa inay bilowdo akhrinta ugu dambeyn Heli way aqbalaysaa waxayna bilaabaysaa inay kaararka mid u furto Heli waxay u sharaxaysaa in 12 kaar ee saadaasha loo dhigay qaab wareeg ah mid kastana uu matalayo calaamad ka mid ah 12 calaamadood ee saadaasha sidoo kale waxaa jira kaar 13aad kaas oo la dhigayo bartamaha wareegga wuxuuna tilmaamayaa micnaha guud ee saadaasha marka hore Heli waxay akhrinaysaa saadaasha Alisa waxay u sheegaysaa maadaama Alisa ay tahay qof xiisoole ah qof aad u xiiseeya waxyaabaha cusub mar walbana isku dayda inay fahanto sababta wax walba u dhaceen Alisa waxay soo qaadanaysaa kaarkada saadaasha wadaadda sare ama high priestess card Heli waxay u sharaxaysaa in kaarkan tilmaamayo inay u socoto guul iyo horumar sida qof jaranjaro kor u sii fuulayo oo kale laakiin Heli waxay ku oranaysaa ha degdegid sababtoo ah haddii aad si xawli u socotid waxaa halis ugu jirtaa inaad ka dhacday jaranjarada taas oo keeni karta dhaawac ama dhibaato aad u culus
kadib waxay u akhrinaysaa Madalena waxa uu soo baxaya ninka la suray xariga Ellie waxay u sharaxaysaa in kaarkan uu tilmaamayo isdhiibid buuxda qof wax ka quusanaya ama xaalad u ogolaanaysa inuu si buuxda isku dhiibo waxayna sidoo kale u sharaxaysaa in qalabka korontada ama isgaarsiintu ay si lama filaan u shaqayn waayi doonaan sidaa darteed waxay uga digaysaa inaysan dhibaatooyinka ka cararin sababtoo ah cararkeedu wuxuu sababi karaa dhimashadeeda dhanka kale Bigson wuxuu u dhaqaaqayaa masqusha dhankeeda intuu wadada maraya wuxuu arkayaa albaab marna furmaya marna xirmaya markuu eego balkoonka wuxuu arkayaa qof meesha taagan Bigson wuu naxaya laakiin markuu si fiican u fiiriyo wuxuu ogaanayaa inuu yahay qashin la isdul saaray isla waqtigaas Ellie waxay bilaabaysaa akhrinta saadaasha Paige waxa uu soo baxaya The Magician kaarka sixiroolaha Ellie waxay Paige u sheegaysaa in maalmaha soo socda ay noqon karaan waqti ku adag isla markaasna ay dareemi karto in laba jiho kala duwan loo kala jiidayo taas oo ku adkaanaysa inay go'aan sax gaarto sidoo kale waxay uga digaysaa khiyaanada iyo marin habaaminta kaarku astaanta u yahay ay ka hor istaagi karaan inay si cad wax u aragto kadib waxaa la gaaray waqtiga Bigson waxa uu soo baxaya The Fool kaarkii doqonka Ellie waxay u sheegaysaa maadaama Bigson uu yahay nin lagu yaqaan inuu yahay qof la isku halayn karo gaar ahaan marka ay timaado saaxiibtinimadu laakiin mararka qaar wuxuu noqon karaa qof madax adag isla markaana go'aanada u qaata si degdeg ah isagoo aan ka fiirsan waxa ka dhalan kara Ellie waxay sidoo kale u sheegaysaa inuu ku xanimi doono meel uusan ka bixi karin marka xigta waxa la gaaray Lucas Ellie waxay u sheegaysaa Lucas maadaama uu yahay qof jecel inuu jabiyo xeerarka markasta wuxuu helayaa The Hermit kaarka ninka cidlada Ellie waxay u sheegaysaa in xaaladda dhaqaale ee Lucas ay isbedeli doonto waxayna u sheegaysaa inuu aad u taxadaro sababtoo ah ninka cidlada mararka qaarkood wuxuu astaan u noqon karaa go'aamo khaldan iftiinkiisuna wuxuu ku hogaamin karaa waddo khaldan Ellie waxay u akhrinaysaa garanti markii ay kaarka rogto waxaa soo baxaya shaydaan Ellie waxay u sheegaysaa in kaarkan astaan uu yahay dhinaca madow ee garanti waxayna tilmaamaysaa inuu ku socdo waddo mugdi ah isla markaana horteeda iftiin ka baxayo wuxuuna naftiisa u hurayaa qof uu aad u jecel yahay garanti aad ayuu xanaaqaya wuxuuna u arkaya arrintan oo dhan inay tahay ciyaar aan micno lahayn kadibna isagoo xanaaqsan ayuu qolka ka baxaya ugu dambeyn Ellie waxay go'aansanaysaa inay nafteeda u akhrido saadaasha waxayna soo qaadanaysaa kaarka markay rogto waxaa soo baxaya dhimasho Ellie waxay u sheegaysaa markastoo ay nafteeda u samayso akhrinta kaarkan ay mar walba hayso isla kaarkan laakiin micnaha kaarka markaa wuxuu noqday mid ka sii cabsi badan kuwii hore waxayna tilmaamaysaa in jacaylkeedu uu noqon doono sababta dhimashadeeda muuqaalku wuxuu u gudbiyaa saqda dhexe sanduuqa ay ka soo saareen kaararka saadaasha ayaa si qarsoodiya u ifaya kadib shaashadda waxaa ka soo muuqanaya meel mugdi ah qof dhuunta iska jaraya iyo shumacyo badan oo ku hareeraysan subaxda xigtay kooxdu waxay ka baxayaan guriga waxayna dib ugu laabanayaan kuliyadda inta ay jidka kusii socdeen waxay istaagayaan kaalin shidaal halkaas Lucas wuxuu ku guulaysanayaa bakhtiyaa nasiib dhan $700 taas oo ka mid ah calaamadihii saadaasha in dhaqaalaha Lucas uu isbedeli doono laakiin iyagu waxaas kuma baraarugsana habeenkaas Alicia iyo Ellie waxaa la gaarsiinayaa meelihii ay deganaayeen Alicia waxay tagaysaa gurigeeda halkaas oo ay ku arkayso jaranjaradii oo saqafka la suray Alicia si weyn agama shakinaysa arrintaas waxayna kor u celinaysaa jaranjaradii kadib waxay ku soo laabanaysaa qolkeeda wax yar kadib Paige ayaa soo wacaysa labadooda waxay bilaabayaan inay wada sheekaystaan laakiin markaas Alicia waxay maqlaysaa dhawaaqyo yaab leh waxay moobilka ku duminaysaa Paige markii ay baxdo waxay arkaysaa jaranjaradii oo la soo dejiyey dhabarkeeda waxaa si lama filaan uga soo muuqanaya qof madow ku dhex jira Alicia waxay u malaynaysaa in saaxiibadeeda ay ku kaftamayaan waxayna oranaysaa laakiin qofna uma jawaabayo waxay fuulaysaa jaranjarada waxayna tagaysaa qaybta sare ee saqafka laakiin halkaa qofna ma joogo ilbirqsi kadib waxaa damaya nalalka dabadda Alicia way naxaysaa waxayna eegaysaa hoos laakiin markii ay dib u soo jeesato waxay arkaysaa meel ay ka buuxaan shumacyo badan oo shidan iyo isku tallaabyo hoos loo rogay kadib waxay arkaysaa kaarkii saadaasha isla markiiba makhluuqaadka ayaa horteeda ka soo muuqanaya naxdin darteed Alicia waxay ka dhacaysaa jaranjarada isla markaa moobilkeeda waxaa soo wacaya Paige Alicia waxay isku dayaysaa inay gaarto laakiin makhluuqaadka ayaa si joogta ugu garaacaya jaranjarada ilaa ugu dambeyntii ay halkaas ku dhimato maalintii xigtay kooxda waxaa soo gaaraya warka geerida lama filaanka ee saaxiibtood gabadha ay hameen hore la dabaaldegayeen dhalashadeeda hadda way dhimatay Paige aad ayay uga murugeynaysaa dhimashadeeda sababtoo ayada ahayd qofkii u dambeeyey oo la hadlay intaysa dhiman ka hor sidaa darteed Ellie waxay go'aansanaysaa inay Paige la joogto si aysan keligeed u noqon dhanka kale Lucas wuxuu ku socdaa waddada tareenka ee dhulka hoostiisa marta intii uu socday nalku wuxuu bilaabaya inuu si aan caadi ahayn u damo kadib Lucas wuxuu arkaya qof hortiisa taagan qofka ayaa bilaabaya inuu u soo dhawaado Lucas oo argagaxsan ayaa bilaabaya orod isagoo isku dayay inuu badbaadiyo naftiisa intii uu cararayo wuxuu si lama filaan u gelaya meel aan dadka loo ogolayn inay galaan halkaas ayuu ku arkaya toorna dhulka yaala markuu si fiican waxaa ku yaala sawirkiisa ciwaanka kore wuxuu leeyahay maanta ayuu dhimanayaa isla markiiba qofkii ayaa hortiisa ka soo muuqanaya Lucas wuxuu si degdeg ah ugu dhuumanayaa tareen cidlo ah laakiin gudaha tareenka wixii kama harayaan marar badan ayuu dhankiisa u soo ordayaa isagoo marba marka kasii dambaysa u soo dhowaanaya ilaa ay midaan dhacdo maalintii xigtay asxaabta inteeda kale booliska waxay ka maqlayaan dhimashada saaxiibkood mar kale iyo dhimasho lama filaan ah laakiin markaa Ellie waxay ogaanaysaa labadoodii saaxiib iyo waxa ku dhacay Lucas wixii ku dhacay waxay si sax ah ugu egyihiin saadaashii kaarka wuxuu ku guulaystay lacag dhan $700 sidoo kale Alicia waxay la kulantay jaranjaradii wax kastana waxay u muuqdaan inay si toos ugu xiran yihiin kaararkii saadaasha sidaa darteed kooxdu waxay bilaabayaan inay internetka ka raadiyaan dhacdooyin la mid ah muddo yar kadib waxay helayaan magac Alma Astrom qof khibrad dheer u leh saadaasha iyo akhrinta kaararka isla markaana horey la kulantay dhacdooyin la mid ah kuwa iyaga ku dhacay kooxdu waxay isku dayayaan inay la xiriiraan laakiin Alma moobilkeeda lama heli karayo sidaa darteed waxay go'aansanayaan inay si toos ugu tagaan gurigeeda
saddex saacadood oo ay safar ku jireen ugu dambeyn waxay tageen guriga alma kooxdu waxay garaacayeen albaabka laakiin alma weydiidaysaa marka hore inay caawiso markay heli u sheegto laba saaxiibadooda inay dhinteen muddo 48 saacadooda isla markaana geeridooda ay ku xiran tahay saadaalinta kaarka hadalkaa markay maqasho alma waxay go'aansanaysaa inay caawiso markii ay gudaha galaan heli waxay si faahfaahsan ugu sheegaysaa alma sidii ay wax u dhaceen sida ay kaararka ku heleen iyo sida saaxiibadooda midka ugu dhimanayaan isla sidii ay saadaasha ku sheegtay alma waxay u muuqataa qof arrintan horey wax uga ogaa kadib waxay u sheegaysaa hadal ka sii cabsi badan alma waxay u sheegaysaa inay horey u dhaceen dhacdooyin la mid ah dhacdadan Mexico City 1951 sanadkii 1951 lix qof ayaa ku dhintay magaalada Mexico dhammaantood waxay dhinteen muddo ka yar 2 maalmood gudahood waxa kaliya ee isku xiray dadkaas waxay ahayd in hal aroos loogu akhriyay saadaasha iyadoo dhammaantood ay heleen isla akhrinta kaarka sanadkii 1969 dhacdo kale ayaa ka dhacday Woodstock saddex qof ayaa dhintay muddo 3 maalmood dhammaantoodna waxay hore u sameeyeen isla akhrinta kaararkan dhacdada xigtay waxay ka dhacday London sanadkii 1988 koox saaxiibo ah ayaa u baxay safar ay ku qaadanayeen maalmahooda fasaxa intii ay halkaa joogeen waxay akhriyeen kaararkan kooxdu waxay dhinteen muddo 48 saacadood gudahooda marka laga reebo hal qof oo kaliya How do you know all of this? qofkaasna wuxuu ahaa alma waxay ahayd qofka kaliya ee ka badbaaday Because I was the one in London who survived. sababtoo ahayd inay alma diiday in loo akhriyo kaararka tan iyo maalintaas alma waxay isku dayeysay inay hesho kaararka si ay u baabi'iso dhammaantood sida ku cad baaritaanada ay samaysay kaarkan wuxuu xiriir la leeyahay haweenay ku takhasustay saadaasha kuna noolay dalka Hungary 1798 haweenaydaas waxay u shaqayn jirtay nin magac weyn lahaa waxayna ku dhaqmi jirtay caadooyin qarsoodi u ah waxayna si dhab ah u rumaysnayd awoodda saadaasha kaarka ninkii ay u shaqaynaysay iyo xaaskiisa waxay sugayeen ilmahoodii ugu horreeyay ninkii ayaa ka codsaday inay saadaal u samayso haweenayda saadaasha samaysa waxayna saadaalisay wax aad u cabsi badan waxay u sheegtay in hooyada iyo ilmaha uusan midkoodna ka badbaadi doonin dhalmada ninkii aad ayuu u xanaaqay wuxuuna ku amray inay mar kale samayso saadaasha laakiin mar kasta natiijadu waxay ahayd isku mid hooyada iyo ilmuhu way dhiman doonaan ugu dambeyn ninkii wuxuu guriga ka eriyey haweenaydii iyo gabadheedii laakiin saadaashii way rumooday xaaskii iyo ilmihiisii waxay ku dhinteen xilligii dhalmada arrintaas ninkii waxay ka dhigtay mid aad u carooday wuxuuna haweenaydii ku eedeeyey sixir iyo fal kadib raggiisa ayuu u diray si ay u soo dilaan raggii way waayeen haweenaydii laakiin waxay dileen gabadheedii haweenaydii aad ayuu u murugootay geerida gabadheedii laakiin geerida waxay isku beddeshay argoosi waxay samaysay xaflad sixira oo dhiig lagu adeegsanayo waxayna goysay nafteeda kadib waxay ruuxdeedii ku xirtay kaarka saadaasha ugu dambeyn ninkii iyo dadkii la socday way dishay dhammaantood waxayna heshay argoosigeedii laakiin dhimashadooda kuma filneen ruuxooda weli waxay ku xirnayd kaararka qof kasta oo akhriyana wuxuu la kulmiyey isla ciqaabtii ninkii dilay gabadheeda alma markaas heli waxay u sheegaysaa inay jirto hal waddo oo keliya ay ku badbaadi karaan kaararka in gebi ahaanba la baabi'iyo markii ay taas maqlaan kooxdu waxay go'aansanayeen inay dib ugu laabtaan guriga si ay u baabi'iyaan kaararka inta ay jidka ku jireen maalinina waxay daawanaysaa muuqaaladii ay horey u duubtay muuqaalkaas wuxuu ahaa markii heli ay u samaynaysay saadaalinta wax yar kadib iyagoo weli socda waxay soo gaarayaan buundo si lama filaana baabuurka ayaa istaagaya matoorku wuu damay umana eka mid mar dambe shaqayn doona daaqadaha hareerahooda waxaa ka soo muuqanaya ceeryaamo maarilina waxay ceeryaamada dhexdeeda ka arkaysaa makhluuqaadkii markaas ayay ogaanaysaa inay tahay qofka xiga ee dhiman doona iyadoo argagaxsan waxay isku dayaysaa inay baabuurka ka caradho saaxiibadeeda waxay isku dayayaan inay joojiyaan laakiin markaas waxay arkayaan makhluuqaadka oo si tartiiba ugu soconaya buundada korkeeda isagoo gacanta xarig ku wata heli waxay isku dayaysaa inay uga digto laakiin ka hor intii aysan gaarin xariggii ayaa si lama filaana maariliin qoorteeda loo suraya heli markay isdhexda qabo wuxuu la aadayaa buundada korkeeda maadlina waa ku daysay kooxdu waxay si naxdin leh u daawanayeen dhimashada saaxiibtood hadda waxay si buuxda u fahmeen inaysan waxaan joogsamayn ilaa midka u dambeeya uu dhinto laakiin bigson aad ayuu uga baqayaa makhluuqaadka wuxuuna aaminsan yahay haddii uu keligiis qolkiisa ku xirnaado inuu ka badbaadi karo heli waxay ku adkaysanaysaa inay dhammaantood wada joogaan maadaama kala tagu uu khatarta sii kordhin karo laakiin bigson wuu ku madax adeygaya isagoo qaadanaya go'aan degdega wuxuu ka tegayaa saaxiibadiis wax yar kadib waxaa aragnaa bigson oo keligiis u socda gurigiisa markaas ayuu maqlayaa qof qoslaya markuu gadaal eego waxba uu arki waayaya isagoo cabsi qaba ayuu isku dayayaa inuu ordo laakiin markii uu guriga gal isdhaho wuxuu arkayaa makhluuqaadkii ayaa bilaabaya inuu eryado isagoo si waali ah u qoslaya bigson wuxuu si degdega u gelayaa wiishta gudaheeda isagoo rajaynaya in makhluuqaadku uu ka lumi doono laakiin markaas ayuu xasuusanaya hadalkii heli oo ku saabsanaa saadaashiisa inuu mar un dareemi doono isagoo ku xaniman meel uusan ka bixi karin wiishka ayaa si lama filaana u istaagaya albaabkiina uu furmaya makhluuqaadka ayaa marba u soo dhowaanaya isagoo cabsi gelinaya ugu dambeyn saddexdii saaxiib oo kale waxay gaareen gurigii waxay bilaabeen inay gubaan kaararkii iyo sanduuqii uu ku jirayba laakiin waxa ugu yaabka badan oo dhacay ayaa ahaa in dabku uusan gubi karin kaararka kadib waxay ogaanayaan inaysan iyagu waxba ka qaban karin waxayna la xiriirayaan alma daqiiqada kadib alma way u imaanaysaa markaas heli waxay u sheegaysaa wixii maalin diray inuu ahaa isla sawirkii kaarka ku sawirnaa alma markaas waxay u sheegaysaa maadaama haweenaydii samaysay kaararkan ay ruuxdooda ku xiran yihiin kaararkan waxay awood u leedahay sawirrada kaarar ku jira inay dunida si dhaba u keento alma markaas waxay diyaarinaysaa qorshe ay ku burburinayso ruuxda haweenayda iyo kaararka markii ay isdhahdo burburi wax ayay dareemaysaa si lama filaana haweenaydii kaararkan samaysay ayaa gadaasheeda ka soo muuqanaysa way soo kacaysaa waxayna bilaabaysaa inay saadaalin u samayso alma kaarka u soo baxaya alma wuxuu noqonayaa 6 seefood
daqiiqada kadib waxay xoog u jiidanaysaa Alma saddexda saaxiib ee kale ayaa argagaxaya waxayna bilaabayaan inay cararaan laakiin wax yar kadib hortooda waxaa ku soo dhacaya meydka Alma oo 6 seefood laga taagay waxay sii wadanayaan orodkoodii ilaa ay kala lumeen cabsi iyo jahwareer awgi wax yar kadib Paige waxay maqlaysaa codka Heli codku wuxuu ka imaanayaa qaybta hoose ee guriga Paige waxay u dhaadhacaysaa qaybta hoose laakiin albaabka ay ka soo gashay ayaa si lama filaan u xirmaya dhanka kale Heli iyo Grant waxay ku cararayaan qol kale waxayna albaabka ku xirayaan alaab culus si ay iskaga mashquuliyaan makhluuqaadka Paige waxay raacaysaa codka meesha uu ka imaanayo laakiin inta ay sii socotay codka Heli wuxuu si tartiib ah isku beddelaya cod cabsi ah markaas ayay dareemaysaa waxa uu yeeray inaysan ahayn saaxiibteed ay ahayd wax kale laambadda ayaa si lama filaan u dumaysa marna u ifaysa markaas ayay kor eegaysaa leerka ayaa ku qarxaya wejigeeda oo dhaawacan dartii wuxuu sababay indhaha inay wax ka arki weydo waxayna bilaabaysaa inay jaha u carabdo ilaa ay timaado meel masrax ah markii ay madaxa kor u qaado sixroolihii ayaa horteeda ka soo muuqanaya sixrooluhu wuxuu u muuqdaa majaajilayste hareerihiisa waxaa fadhiya dad ruuxaana dhammaantoodna waxay si aamusan u daawanayaan showga Paige waxay isku dayaysaa inay cararto laakiin si lama filaan ayuu silsilad cagaha uga xirayaa Paige isma dhiibayso iyadoo lugaha ka xiran ayay sii soconaysaa waxayna ogaanaysaa inaysan jirin cid u imaanaysa si ay u badbaadiso markaas ayay arkaysaa sanduuq weyn iyadoo cabsi la gariiraysa ayay u malaynaysaa in sanduuqan uu noqon karo meesha keliya ay ku badbaadi karto kadib waxay gelaysaa gudaha sanduuqa waxayna xiranaysaa daboolka daqiiqado yar oo aamusnaana Paige waxay nafteeda u sheegaysaa in sixrooluhu uusan heli karin laakiin markaas sanduuqa ayaa bilaabaya inuu dhaqdhaqaaqo Paige waxay isku dayaysaa inay ka baxdo laakiin daboolku ma furmayo markaas ayay fahmaysaa sanduuqan inuu yahay damin loo dhigay sixroolihii ayaa sanduuqa ku jiidanaya wuxuuna geenayaa meeshay dadka ruuxaanta ay joogeen Paige waxay bilaabaysaa inay qayliso waxayna xoog u garaacaysaa daboolka markaas sixrooluhu wuxuu soo qaadanayaa miishaar weyn Paige waxay isku dayaysaa inay sanduuqa ka baxdo laakiin ma jirto meel ay uga baxdo sixrooluhu wuxuu bilaabayaa inuu miishaarta ku kala jiro sanduuqa iyadoo ku jirta dhanka kale Heli iyo Grant waxay si toos u maqlayaan qayladeeda laakiin ma jirto wax ay u qaban karaan su'aasha kaliya ay isweydiinayaan waa kuma qofka xiga ee dhiman doona xilligan Heli waxay fahmaysaa haddii ay u akhrido kaarka ruuxda sixrooleyda inay bedeli karaan qadarka sidaasna ay ku dili karaan ruuxda sixrooleyda laakiin Grant wuu diidaya wuxuuna u sheegaya haddii ay halkan ka baxaan inay dhimanayaan Heli waxay u sheegaysaa inay mar hore dhinteen laakiin ugu yaraan ay isku day sameeyaan intii arrinta ay ku murmayeen Grant ayaa si lama filaan daaqada loogala baxaya Heli oo argagaxsan ayaa isku dayaysa inay cararto laakiin makhluuqaadka kaarkeeda ku jira ayaa isla markiiba soo muuqanaya wuxuuna bilaabayaa inuu ceyrsado waxay ku ordaysaa gudaha guriga dhinac walba ay ku ordana waxa ka soo horbaxaya makhluuqaadka ilaa uu qabto iyadoo ku dhow dhimasho si lama filaan Grant ayaa bir ku dhufanaya makhluuqaadka kadib wuxuu ku oranayaa orod kaarka akhri aniga la sii dagaalamaya Heli waxay dib u habeynaysaa kaararkii dhanka kale Grant waxaa jiidanaya makhluuqaadkii Heli waxay bilaabaysaa inay akhrido kaararka arrintaa waxay ka caraysiinaysaa ruuxda haweeneyda waxayna isku dayaysaa inay joojiso laakiin Heli waxay go'aansanaysaa inay si toos ah ula hadasho waxayna ku oranaysaa waan dareemayaa xanuunka uu leeyahay qof aad jecesho laga qaato wixii hore inaad ku dhaganaatina ma bedelayo mustaqbalkaaga isla markaa iyadoo xanaaqsan ayay Heli qoorta qabanaysaa iyadoo ceejinaysa dhanka kale Grant waxaa loo sii wataa meel dab iyo makhluuqaad badan ay ku jiraan dhanka kale Heli waxay ka yaabsanaysaa sixroolaydii iyadoo u saadaalisay kaarkeeda wuxuuna noqday dhimasho taasu micnaheedu waa in dhammaadkii sixroolaydii uu yimid daqiiqada kadib dabayl xoog leh ayaa ka kacaysa qolka waxayna jiidanaysaa ruuxaanta haweeneyda ugu dambeyn kaarkii saadaasha wuu gubtay habaarkiina way jabiyeen Heli iyo Grant waxay ku socdaan jidka wax yar kadib waxay arkayaan gaari soo socda marka hore waxay u maleynayeen inaysan dhibaatadii weli dhammaan laakiin markuu gaarigu soo dhawaado waxay ogaanayaan inuu yahay Bigson wuxuu si mucjisale uga badbaaday makhluuqaadkii saddexdoodu aad ayay ugu farxayaan inay mar kale is arkeen inta ay sii socdeen Bigson wuxuu u sheegayaa sidoo uga badbaaday makhluuqaadkii wuxuu u sheegayaa in qofkii la deganaa guriga uu waqtigii loo baahnaa u furay albaabka wiishka taasina waxay sababtay in makhluuqaadku uu meesha ku baaba'o laakiin hal su'aal ayay weli isweydiinayaan dhibaatadu ma dhammaatay mise